daawadayaal ku soo dhawaada qaybta idaacadda raadiyo baraarug media waa laabay ugu soo gudbina waxa ka dhaca geyga Soomaalida iyo caalamkaba saaxiibayaal haylaawina inaad ku dhufataan subscribe oo si la gareysaan lana wadaagtaan saaxiibadiina kale si aad halka mar walba nagala socotaan macluumaadka inuu soo gudbino marka hore dalka dastuur buu leeyahay wax la yiraahdo dastuur buu leeyahay dalku dastuurka uu leeyahay waxa weeye dalku yaala dalka imka qabyaalada uu ka baxo waa dimuqraadiyad dastuurka uu leeyahay dastuurkaasi ma dhigayo in madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi lagu toojar gareeyo inuu wareejo gudoomiyaha xisbiga iyo musharaxnimada labadaba inuu wareejo dastuurku dhigi maayo dastuurka qaranka wuxuu dhigay madaxweynaha qaranku inuu laba jeer soo sharaxi karo labada jeer markuu soo sharaxo ay ka dhamaatay inaan dib loo dooran karin iminka Muuse Biixi hal 5 sanadood buu soo sharaxay 5 sanadood soo sharaxay sanad baa wali u harsan waxaanad moodaa wali inaanay Soomaaliland qabyaaladii ka bixin oo dimuqraadiyadii aan qaadan waayo waxa lagu toojar garanayaa madaxweynaha oo beeshiisi lagaga ergeynaya oo odayaashiisi lagaga ergeynaya inuu wareejo gudoomiyaha xisbiga iyo musharaxnimada xisbigaba taasina xaq maaha madaxweynuhu xaq buu leeyahay waxna waa cadaalad darro iyo awood sheegasho waxna waa cadaalad waxa cadaalada inuu soo sharaxo mudane Muuse Biixi Cabdi waxa cadaalada inuu 5 sanadood dambe soo sharaxo in doorasho u gala xalaala waxa cadaalada inuu hayo oo dhigaya dastuurka qaranku ama shuruucda kulmiye inuu han karo madaxweynuhu gudoomiyaha haday dhacdo uu damco inuu gudoomiyaha wareejiyo habar jeclo waxa ku jirtay garaadag bay ku jirtay Salmaan Maxamuud Aadan iyo Siilaan yaa lagu kala reebayay habar jeclo faraheedu waa Muuse Abukar iyo Maxamed Abukar Muuse Abukar labada Muuse Abukar baa badan 13 xildhibaan baa soo baxay Maxamed Abukarna 5 xildhibaan baa soo baxay ama isla degeen ama wixii soo baxin baa la sheegay madaxweynaha qaranku wuxuu siiyay intii ugu badneed Maxamed Abukar laba wasiir buu leeyihiin gudoomiyaha komishiku leeyihiin Salmaan Maxamuud Aadan bay leeyihiin jananka sirdoonka leeyihiin dhiijiga tayada leeyihiin dima tirin karo Muuse Abukar waxaad moodaa xilalka inay ka yar yihiin ama ay ka qatan yihiin inta badan iyadoo taasina ay keentay in dawladda la kala maal yaqaano lagu kala ilbaxsan yahay kuwii hadana intaasoo xil hayay ayaa hadana qaylinayo madaxweyne ku soo shargareenayo inuu musharaxnimadii iyo gudoomiyihiiba wareejo iyaga ku soo wareejo taasina cadaalad maaha siyaasaduna madaxweyne saaxiib ma laha siyaasadda in kaaga loo gowraca siyaasaddu saaxiib ma laha haddii ay dhacdo anigu waxaan ku oran lahaa labadaba isku hayso haday dhici weydo ay dhacdo inaad gudoomiyaha wareejiso waxa shirkii gar adag lagu kala saaray Salmaan iyo Siilaanyo habar jeclo ku ballanta anigoo ah hogaaskii guud ee Soomaaliland waxay habar jeclo ku ballanta in Muuse Abukar maanta ana soo saartaan hadaan Maxamed Abukar madaxweynuhu haduu markii hore aanu hantida qaranka ku isticmaalin horta hantidan madaxweynuhu hayay ummaddu leedahay ummadda leh iminka uu isticmaalaya madaxweynuhu hantida ummadda oo wuxuu isticmaalaya hantidiisa oo wuxuu ku soo baxaya 5 sanadood dambe musharaxnimada madaxweyne soo sharax baan ku leenahay waanu ku garab taaganahay waanu ku dhisaynaa cidina yaana kugu toojar garaanin ama beeshaada lagaaga madaxweynaha loo soo fadhiisiyo waayo sharci baad ku taaganta waxna waa sharci darro waxna waa sharci waxa leeyahay madaxweyne siyaasaddu ama ma gasho siyaasaddu saaxiib ma laha haddaad wareejinayso xilka gudoomiyenimo Xasan Gafaadhi baa xaq u leeyahay ku wareeji wasiirka caafimaadka xaq u leeyahay Xasan Gafaadhi ee ku wareeji haddaad saaxiibkaad ugu la doonayso inaad ku wareejisana waa mid adiga ku taala haddii sharcigu ogol yahay saaxiibka inaad ku wareejiso 9 casho ogol yahay in shir lagu qabto xisbiga kulmiye golaha dhexe haloo odayo
xasan gaafaadhi oo ha lagu wareejo waayo xasan gaafaadhi karti waa leeyahay xusbigii rays isagaa watay cidi lama garab gelin cidi lama waxa weeye isagaa wato isa soo saaray waanu soo baxa isagoo soo baxay baa laba xusbo bariyay soo bixi maayaane xusbigaana xaashi baa loo tiriyaa yidhi anaa tiriibka dambe madaxweyne isu soo sharaxaye xusbigan musaab korka reeb isagii baana cuqubadii ku dhacday inaa xaashi wakaa dibadda wareegayay markaa madaxweyne waxaan kugula talin lahaa 5 sannadood oo dambe isu soo sharax oo waxa weeye codka adiga militariga u taliya adaa bileeska u taliya adaa madaxweynaha qaranka ahna taliyay ciidanka guud hantidii ummadana adaa haya hantida ummadda haddaad ummadda siiso waa ummaddii lahaydoo dembi kuguma aha haddaad qoyskaaga siisay dembi kugu noqonaysa ummad waxaan leenahay kugu hambalyeelnaynaa inaad soo sharaxdo waanu aad iyo aad baan kugu taageeraynaa waanu kugu garab taagana qoladan qaylinaysa habar jeclana dee shalay bay ka degeen shalay bay kursiga ka degeen 10kaaga sano dhammayso 10kaaga sare dhammayso taa waan kugu hambalyeelnaynaa tii horena annagu kumaanu qabin tanna waa la mid dadkuunbaa ku kala sareeyo inta dowladda ku jirtuunbaa ay ahaa isu soo sharax haddaad guddoomiyaha wareejinaysana xasan gaafaadhi ku wareeji buurmadow waxaan arkaya tvga oo tvga qarankoo lafihii soo fagay oo habeen dhaweyto goor dambe aan daawaday tv lafaha la soo fagay ee qalbiga qofku xanuunayo waa dhibaato buurmadow waa boqorkii dee somalilan boqor muqdisho maaha hadraawinduu ka tegey burco ayuu ilaa gobollada dhexe socda iyadoo dowladdu jirto hadraawi wax siyaasada ma dhex gelin gobolladu dhexuu tegey beledweynuu tegey inuu xamar tegey ma garan karo laakiin siyaasad ma dhex gelin dowladduna waa eegod waanu soo noqda laakiin boqorku siyaasaddiiba ayuu dhex gala boqorkana looma wakiilan siyaasadda inuu dhex galo waa boqor somalilan waa boqor afrika waa boqor adduunka oo dhana waxaan leenahay wuxuu ka baxay xasaaniyaddii waddankuu ka baxa sharcigii waddankuu dumiyey tv dowladduna dowladii waxba ma caydo tvga qaranka caybaa ka baxaysay boqorka la caayo caydaasi macquul maaha dowladdu awood bay leedahay awoodooday wax ku qabataa madaxweyne wax kulan caydaa laga joojo 100 kun oo qof oo ku taageersanaa ayaa caydaa boqorka la caaya adigana kaaga tegaya boqorku dembi buu galay uu ka baxay xadkii somalilan dastuurkii somalilan buu jabiyey sharcigeeda la sug madaxweyne taana waxaan ka odhan lahaa boqorkana intaasaan ka odhan lahaa xadhigaagii dhawaan magaalada Hargeysa lagu xidhay bal xadhigaaga muxuu daarnaa iyo waxyaalaha lagu xidhay waa runa waa la xidha anigoo jooga halkan ayaa gaadhi nooho askari timi gaadhiga nooha waxa hor ka caayay Guuleed Maxamed Kaahin aanu ilmaadarnahay iyo gaadhigii wasiirka arrimaha gudaha markaan Guuleed Maxamed Kaahin yarkay gaadhigii wasiirka arrimaha gudaha wax dhaqdhaqaaqa maan sameeynin waxa la lagu xidhayaana mari waan raaca macna ma laha haddii qof la kaxeeyo ama la yidhaahdo waa lagu soo dacweeyena mari laakiin saldhigga marka qofka la geeyo baa la yidhaha qofkan dembi maleeya mise ma laha saldhigga dhexaanu tagnay taliyaha Axmed Dawac wuxuu yidhi ninkani dembi ma laha wax dembi miyaad u haysaa wuu hadlay taliyaha saldhigga dhexe Axmed Dawac uu ka yeeli waayay inuu xidho 99ka nin wata oo heeganka loo gaashaan la saraa ayuu Guuleed la hadlay saaxiib yihiin ninkii amar soo bixiyay amarkiisa in laygu xidho amarkii gaashaan la saray heeganka watay ee 99ka saacada lahaa baa laygu xidha 3 xashoo sharci darraa baan xidhnaa madaxweyne 3 xashoo sharci darraa ayaan xidhnaa taasina cadaalad darree waxaan u hadli waayay intaasoo dhan shanankii ciidanka maqnaa dabagale la sug iminkana adaanku soo gaarsiiyey waxa weeye sharci darrada dadka lagu xidhaayo aan cadaaladda ahayn shanankaaga iyo cidday qusayso adiga madaxweynihii qaranka waa inaad go'aan ka qaadataa qofka dembi gale ee ciidan qaran ka tirsanee bileeska ka tirsan ama gaashaalla ha noqdo ama janan sharcigu waa madaxweyne ha qabto taliyo hadduu iska xidho qof aan waxba ku lahayn dee meel looga ashkatoodaa madaxweyne ma jirto kaad uga ashkatootaaba wuxuu ku leeyahay kasara u tag adigana laguma soo gaari karo
sharcigu ha shaqeeyo.